السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada meel walba adduunada caladeeda ka joogtaan maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago mid kamid ah dagaaladii muslimiintu ay galeen inta nabigu noolaa dagaalkii ugu qaraara oo aan arko oo aan daraasiyo oo aan daawado haddaan ku yiraahdo ka waran 200 oo kun oo ciidanka Yurubiyaanka iyo Carab la jirtay ayaa waxa qaabilay 3000 oo muslim ma maqasho dagaalka asaga ah ana maanta kaga sheekayno dagaalka asaga waxa uu socday 7 maalin ayaa muslimiinta is hortaagnay nimankii Yurubiyaanka oo halka lagu dagaalamay Kristaanka ah ciidanka asaga ah ee muslimiinta waxa ku dhacay saddexdii hogaamiye ee nabiga sallallahu alayhi wasallam u magacaabay ciidankaas oo ku yiraahday hebel la dilo hebel baa xilka qabanayo hadii hebel la dilo hebel baa xilka qabanayo hadii hebel la dilo hebel baa xilka qabanayo dhamaana saddexdoodiiba waa la dilay saddexdii hogaamiye muslimiinta ay halkaas ay ku shahiideen waa dagaal aan inaba caadi ahayn oo aan la yaabay intaan daraasaynay dagaalka asaga ah waa dagaalkii ugu horeeyay ee muslimiintu ay qaadaan oo meel jasiiratul arab ka baxsan ay ku qaadaan madiina ayaa muslimiinta dawladooda ka dhisan tahay xilliga asaga laakiin dagaalku waxa uu ka dhacayaa meesha la yiraahdo halka iyo muuta oo urdun maanta ku taala soo dhaw saaxib hadii aad halkan ku cusub tahay halkani waa taariikh show alaaba waxaanu soo gelinaa muuqaalo la xiriira taariikhda gaar ahaan taariikhda islaamiga oo ku saabsan dagaaladii ay muslimiintu galeen iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam taasoo ay ku fidinayeen risaaladan ilaahiga hadii halkan tahay markii kugu horeyso aragto waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto noo share gareyso saaxiibadana aad la wadaagto soo dhaw mar kale sanadii lixaad nabiga sallallahu alayhi wasallam markii nimankii kufaar quraysh uu la galay heshiiskii sulhul hudaybiya oo ay kala saxiixdeen in 10 sano aan la dagaalamin oo xabad joojin la wada qaato nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu go'aansaday in uu markan dacwadiisa u bandhigo adduunka intiisa kaleeto dawladii kale oo adduunka ka jiray maadaama culayska ugu badnaa nabiga uu ka degay oo quraysh dagaalkii ay ku haysay uu ka degay maadaama quraysh ay ahaayeen cadowga koobaad ee muslimiinta xilliga asaga ah nabigu waxa uu fursad u helay markan inuu u soo jeesto adduunkii kale oo fariintiisa u gudbo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu diray sanada ayada ah ee lixaad 9 fariinside ayuu diray 9 safiir ayuu diray dunida intii kale ayuu u kala diray 9 safiir dhamaantood maanta ka sheekaymayno waxaanu ka sheekaynaynaa hal safiir oo nabiga sallallahu alayhi wasallam u diray magaalo la yiraahdo Busra boqorkii xukumayay kaasoo ka dhashay qabiilkan la yiraahdo Qasaasinada qabiilkan Qasaasinadu waxay ahaayeen qabiil Carabeed oo dhulka Shaam la yiraahdo dega haddana maartay xilfi iyo gaashaanbuurs iyo diiniba ay ka dhaxayso dawladii Ruumiyiinta halka xukumaysa oo ninkii Hiraqle la dhahayay ay hoos tagayaan oo Qustantiniya caasimadiisu ay ahayd haddaba daawada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu diray saxaabi la yiraahdo Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi ayuu fariin u dhiibay waxaana u diray boqorkii xukumayay magaalada Basra ee hoos tagayay dawladii Ruumiyiinta ee Kiristaanka ahayd fariinta uu diray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku leeyahay soo islaam rasuulka Allah ayaan ahay diinta ayaan kugu baaqaya ee soo islaam dadna Harith saxaabiga fariinta ayuu qaaday waana u dhaqaaqay markii uu dhaxda sii socdo intuusan gaarin ninkii asaga ahay uu socday ayaa dhaxda waxa ku qabtay nin kale oo hogaamiye ahaa oo kamid ah qabaa'ilka Qasaasinada ee dhaxda deganaa ah kaasoo magaciisa la yiraahdo Shurahbil ibn Amr al-Ghassani ayaa dhaxda ku qabtay dadna waa uu dilay taasoo macnaheedu uu yahay dagaal inuu iclaamanayo sababtoo ah rususha in la dilo ama fariisidayaasha in la dilo safiirada macnaheedu waxay tahay waa iclaan xarbi dagaal baa la iclaamanaya waxba isu diri maysan waxba ku soo diri maayo waxna dhex yeelana ma ay jirto oo ka ahayn seefta fariin noocaas ayuu ninka asaga ah la yiraahdo Shurahbil ibn Amr ayuu soo gudbiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam soo gudbiyay fariintii markii ay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina ay soo gaartay dawladii muslimiintu way ka falcelisay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu diyaariyay ciidan gaaraya 3000 oo askari ayuu diyaariyay ah ciidankii ugu badnaa oo ilaa hadda ay muslimiintu ay diyaariyeen inta wixii ka horeeyay way ogtiin dagaalkii Uhud iyo kii Badr iyo kii Ahzaab intaba tirayar ayaa lagu galayay laakiin markan ayaga ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu diyaariyay 3000 oo ciidan ayaa uu diyaariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo doonayo in loo aaro saxaabiga asaga Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi maalin jumca ayaa ciidankii ka ruqaansaday magaalada Madiino ciidanka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu diyaariyay waxaana uu u sameeyay 3 umara ah oo isku bedelayso oo 3 qiyaada ayuu u sameeyay 3 saxaabi ayuu hogaamiyaal uga dhigay saxaabiga koowaad waxa la dhahayay Zayd ibn Harith ayaa la dhahayay waa mawlihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka ayaa xoreeyay waad ka warqabtaan qisadiisna waad garanaysaa saxaabiga Zayd ibn Harith ayaa la yiri Zayd ayaa hogaamiye idin ah hadii Zayd la dilo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa hadana hogaamiye idin noqonayo Ja'far ibn Abi Talib oo nabiga ilmaadeer ay yihiin oo aad garanaysaan hadii Ja'far la dilana nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri waxa hogaaminaya ciidanka Abdullah ibn Rawaha oo Ansaariga sida ayaa laba muhaajiriina iyo nin Ansaariya ayaa ciidanka hogaamiyaal looga dhigay dadna ciidankii maalin jumca ayuu halka ka soo ruqaansaday waxaana uu soo aaday kii lagu dilay saxaabiga la yiraahdo Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi nabiga waxa ku yiri dhaqaaqa waxa tagtaan halkii lagu dilay saxaabiga la yiraahdo Al-Harith ibn Azdi halka marka tagtaana dadka jooga diinta ugu yeera islaamaanna waa khayr hadii diidaana ilaahay u tala saara oo dhagta dhiig u dara hadaba daawadayaal waa ay soo dhaqaaqeen ciidanka muslimiintu maalin jumca magaalada Madiino ayaan ka soo dhaqaaqay waxaana ay soo aadeen Mu'ta meesha la yiraahdo oo ku taala maanta wadankan loo yaqaano Urdun oo Falastiin saaran ay kana tirsan dhulka Shaam ee barakaysan ciidanku way soo dhaqaaqeen halka ayay yimaadeen halka markay yimaadeenna saxaabigii Zayd ibn Harith waxa uu sameeyay waxa uu diray
sahano badan ayuu diray oo ka warkeenayo cadowga iyo xaaladiisa deedna waxay la soo laabteen fariinsiyaashii ama sahanadii ciidanku ama istidlaaci ciidanku uu diray in maaragtay qabaa'ilkii qasaasinadu ay maqleen muslimiinta ay ka war heleen iyo duulaanka muslimiinta deedna ay 100,000 oo carabti qasaasinada kiristaanka ay soo diyaariyeen boqorkii qaysarna hadana ay u fariin dirsadeen ayaguna ay soo direen 100,000 oo kaleeto ciidan 200,000 oo kun ah ayaa muslimiintii soo aaday warka ayaa yimiday oo u yimiday saxaabadii uu hogaaminayay Zayd ibn Harith xaaladuna waa adkaatay 3,000 baa leeyahay warxintuna waxay sheegaysaa in 200,000 oo kun ay soo kulmiyeen gaaladii saxaabadii waa la isku jeestay war maxaan yeelnaa maxaan sameynaa ma rasuulka iyo Madiina ayaan u laabanaa ma rasuulka iyo fariin u dirsanaaho xalkii baan halka ayaan la socodsiinaa ogow hadda masaafadu aad bay u fogtahay in Urdun laga soo diro fariin oo Madiina la keeno hadana Madiina midka laga diro oo halka jawaabta lagu celiyaa waxay qaadanaysaa waqti dheer cadowgiina waa uu yimid soo ciida ka badan saxaabadii wax ra'yiga la rogrogaba ugu dambeyn waxa hadlay hogaamiyihii saddexaad ee ciidanka Abdullah ibn Rawaha waxa uu yiri nimayow dhageysta anagu muslimiin baynu nahay diinkan ayaan xambaarsannahay anaguna cadowga kulama dagaalano tiro iyo tayo intaba kulama dagaalano diinkan ayaan kula dagaalamayna cadowgiin wallahi mid aad kohanaysaan oo ah dhimashada ayaaba ahba mid aad u soo baxdeen oo hadii la dhinto waxa weeye khayr badan baa naga horeeyo nimayow waxaan arkaa weeri waa laba mid kamid ah imma inaynu dagaalano deedna aynu dhamaano oo halka ku dhamaano waana khayr iyo shahaado iyo waxaad soo jiriseen imma waa inaynu guuleysano oo maartay halka nasri iyo guul aynu kala laabano labadaba qasaare kuma jirno saxaabadii ayuu aad u gubaabiyay deedna xamaasad ayaa halka ka dhalatay waxana go'aan lagu gaaray ugu dambeyn inaan fariin iyo waxba la dirin cadowga la dagaalamo ilaahay ayaga cadowgooda oo kala xukumayo sida ayaa muslimiinta ay ku heshiiyeen deedna waxay saldhig ka dhigteen muslimiinta meesha loo yaqaano Mu'ta oo tuulo yar oo meesha ku taalo ayaa Mu'ta la yiraahdaa ayada ay difaac ka qoteen oo halka ayay muslimiinta digeen hadaba daawada ciidankii gaaladu waa ay yimaadeen dawladda Roomiyiinta iyo Carabta Kiristaanka ee qasaasinada ayagoo 200,000 oo kun ah halka ay yimideen xagga Yurubiyaanka ciidankan waxa hogaaminayo nin ay walaalo yihiin boqorkan xukumayo Yurubiyiinta kaasoo magaciisa la yiraahdo Theodore ayaa la yiraahdaa ninkaas ayaa hogaaminayo ciidankan Yurubiyaanka waxaana ay walaalo yihiin boqorkan xukumaya Roomiyiinta ee Qaysar hogaamiyaashii kale Carabta qasaasinaduna waa ay la socdaan oo ciidankan hogaaminayay meeshii ayay yimideen deedna maalintii xigtaba ayagoo nasaninba muslimiintii ayaa weerar ku qaaday oo dagaal adag ayaa halkaasi ka dhacay deedna gaaladii waa ay la yaabeen ciidankan muslimiinta tiradiisa sida ay u yartahay iyo sida ay u dhiiran yihiin gaaladii ayagoo is hagaajinin oo dagaalka aan u safanin ayaa muslimiintu halka ku weerareen dagaal adag baana maalinta ka dhacay oo waa la isku riiqmay si wacanna muslimiintu halkaas maalintaas wacdar ay ka dhigeen oo saxaabadu si aan caadi ahayn ay maalinta u dagaalameen ilaa maalintii koobaad oo dhan seeftu ay shaqaysay oo madaxyadu ay duuleen oo aan waxba la isku reeban wax la dagaalamaba gobolkii markii uu dhacay labada ciidanba midba halkii uu ka yimid xeradiisa ciidanka ayaa loo kala gurtay oo waaga ayaga ah xilliga asaga ah lama dagaalamo habeenadii oo habeen hadii la gaaro maadaama waxba la arkaynin ciidamadu waxay aad sida caadadu ay tahay in la kala nasto oo ciidan waliba dhaawaciisa intuu gurto iyo dhimashadiisa deedna saldhigyada lagu kala laabto maalintii labaad hadana waxa la gaaray markii sida waaga u dilaacaba muslimiinta halkii ay ka sii wadeen weerarkooda oo waa la dagaalamay oo hadda wax isku dhow maahan 200,000 oo kun oo gaala iyo 3,000 oo muslimiina farqiga waad garanaysaa say muslimiintana u dhameeyaan nimanka ayaga waxa cala nin kasto muslima ku soo aadaysa 66 qof hadii 66 qof uu dilo qof kasto muslim ah nimanka gaalada way dhamaanayaan laakiin 66 qof cala qof inuu ku soo aado waa xisaab marka dagaal la joogo mucjiso ku dhici kartay aan si kale ku dhicin hadaba daawada dagaalkii maalintii labaad hadana muslimiinta ayaa hor bilaabay ayagoo wali aan diyaar garoobin nimanka ayaga ah hadana dhigta ayaa dhiiga la isu daray oo waxba la isku mar reeban sidii maalintii hore kale tana dagaal aan caadi ahayn ayaa halka ka dhacay oo waa la isku dhamaaday muslimiintuna waxay muujiyeen wacdaro iyo dagaal adag ayay muujiyeen maalintii labaadna sidii maalintii koobaad oo kale ayaa markii gobol ku dhacay labada maaskar loo kala laafay maalin saddexaad ayaa hadana sidoo kale dagaalkii sii socday ilaa maalintii lixaad laga gaaro maalintii lixaad markii la gaaray oo maalin shantii maalin ay horeysana ay muslimiintu weerarka bilaabayeen gaalkii hogaaminayay ciidankii Yurubiyaanka waabinkii waa u fikiray waxa uu maalin walba maxay aniga weerarka ugu bilaabayaan maanta ana weerarka bilaabayo maalin walba maana difaac ku jiro anoo 200 oo kun wato deedna waxa uu go'aan ku gaaray inuu asagu subaxan aan laga hormarin subaxdii lixaad ayuu weerar soo qaaday muslimiinta ayuu weerar ku soo qaaday muslimiintana maalintii sida taariikhyaanadu ay sheegaan waa maalintii ugu qaraaraa dagaalkaasi oo muslimiintuna dhibaatada ugu badneed ay soo gaartay dagaalka ayaa aad u cuslaaday ilaa maartay saxaabigii la oranayay ciidanka hogaaminayay Zayd ibn Haritha intuu arkay xaaladina xun tahay oo raayadiisa qaatay oo calanka qaatay deedna uu dhaxgalay cadowgii gaalkii hogaaminayay ciidankan oo ay walaalaha ahaayeen boqorkii Qaysar ee Yurubiyaanka markii uu arkay xaaladdu sida ay tahay wuxuu go'aan ku gaaray hogaamiyaasha ciidankan hogaaminayay muslimiinta inuu laayo si ciidankan awoodiisu ay u daciifto maadaama
maadaama 3,000 askari oo 6 maalin hor taagan 200 oo kun waa hayaba aan xisaabaadka ku jirin way dagaaladan aan lagu aqoon dadkan maxay ahaayeen bini'aadam ma aha dadkan dadna ciidankiisa ayuu ku yiri waa inaad laaysan nimanka calanka sida nimankan ciidanka calanka ay ku xiran yihiin dhamaan inta calankaas taagaya wallahi inaysan meel u dhaqaaqin calanka ay ridan mayn dadna saxaabigii calanka hogaaminayay ee hogaamiye ahaa Zayd ibn Harith ayaa culeys badan ay soo saareen gaaladii dhamaantoodna halkaas ayay soo aadeen Zaydna aad buu u dagaalamay ilaa ay dileen oo ay ku soo xoomeen oo warmo iyo seef iyo falaar sidii ugu wadaan saxaabigii uu dhacay calanka dhulka ayuu ku dhacay calanka markuu dhulka ku dhacay saxaabigii labaad ee Jaafar ibn Abi Talib ee nabigu yiri hadii Zayd la dilo Jaafar ayaa iska leh Jaafar waa u yimid calankii ayuu dhulka ka soo qaatay halka ayuuna ka dagaalamay asna dagaalan caadi ahayn ayuu watay faras waxa la sheegaa aad u orod badan ayuu watay deedna faraskii waa uu dilay oo waa uu boqna gooyay kadibna saaxada dagaalka ayaa uu degay wuxuuna bilaabay inuu gabiyo si uu si dhiirigeliyo soo oranayo yaa habadal jannatu waqtirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha waruum qadana cadabuha alayya illa qaytuha tirabuha xawleeyaha war jannadii macaanta badneeday wallahi maxay jannadu macaan badan tahay jannadu macaan badana tayyibatan wa baridan sharabiyeedu qabow badana oo macaan badana waruum qadana cadabuha ruumna wuxuu leeyahay cadaabkooda ayaa soo dhawaaday ciidankan gaalada ee ruumiyiinta cadaabkooda ayaa soo dhawaaday leeyahay alayya illa qaytuha tirabuha hadii aan la kulmana waxa igu waajib u leeyahay inaan madaxyada ka guro oo aan dhameeyo deedna culays badan bay soo saareen saxaabigii waa u dagaalamay ilaa gacantii uu ku siday calanka muslimiinta ay seef ku kala jareen nimankii gaalada Yurubiyaanka deedna calankii dhulka markii ku dhacayay ayuu intuu ka daba maartay ku foorarsaday ayuu gacanta midig ku soo qabtay calankii ayuu gacanta kale ku qabtay deedna haddana gacantii labaad ayaa haddana seef ku kala gooyeen kadibna waxa uu isugu geeyay calankii cadudiisa ayuu saa ugu qabtay labada cadudood deedna dhaxda ayay seef uga kala jareen xadiiska Bukhari ku jira waxa warinaya Abu Raafic oo Ibn Umar ka warinaya wuxuu leeyahay waxaan markii aan meedkiisa soo qaadnay oo laba cad oo soo qaadnay waxaan ku aragnay leeyahay konton dhaawac oo seef iyo waran iyo isugu jiro wiil falaar oo meel fayow saxaabiga asaga ah korkiisa kumaanay aalin saasay taani wuxuu leeyahay dhammaan dhaawacaasi jirka qaybtiisa hore ayuu ku wada yaala dhanka xabadka soo xigta oo dhabarkiisa hal xaba kuma taalo leeyahay yani asoo hore u dagaalamayo hore u jeedo aan dabada jeedin ayaa saxaabiga asaga ah u shahiiday oo dagaal adagna waa u galay calanka muslimiinta markuu dhulka ku dhacay sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegaba saxaabiga Abdullah ibn Rawaha ahaa oo hogaamiyaha saddexaad ciidankana ahaa ayaa calanka dhulka ka qaaday deedna shaydaan ayaa u yimid saxaabigii markuu arkay labadii saaxib labadii hogaamiye asaga ka horeeyay meeyda hortiisa yaala oo dhiigooda dhaxgal galanaya markuu arkay naftiisi ayaa yara way taraduday deedna waa iscanaantay oo gabay buu tiriyay uu leeyahay aqsamtu ya nafsi la tanzilanna aw la tukrahinna ma li araka takrahina aljanna war maxaa kugu dhacay naftiisi ayuu wallahi saaxada dagaalka goobta dagaalka wallahi nafiyay waad u dagaysaa oo dagaalka waad galaysaa ama waan kugu qasbaya adoo sandulaysan ayaan dagaalka ku gelinaya nafiyahay maxaad u caranaysaa war ma li araki takrahina aljanna maxaad u kahanaysaa jannada maxaad jannada u naxbaysanaysaa oo maxaad u taradudaysaa nafiyahay naftiisi ayuu canaantay in tafcali ficlayhuma huditi wuxuu yiri hadii aad samayso labadii nin ee ka horeeyay labadii saaxiib adiga ka horeeyay Zayd iyo Jaafar siday sameeyeen hadaad samayso huditi waa lagu hanuuniyay oo halkaas janna ayaa jirta naftii ayuu canaantay deedna waa soo ragaal celiyay cadawgii ayaana weerar adag ku qaaday ilaa uu wacdara iyo balaayo dhigay ugu dambeeyna asagana waa la dilay muslimiinta maalinta waa maalintii lixaad oo ay weerarka soo qaadeen nimanka Yurubiyaanka xaaladuna ay aad ugu adkaatay muslimiinta oo nimankii saddexda hogaamiyaashaaba halka maalin ayaa muslimiintu ay waayeen oo ragaas qaaliga saxaabada ahaa magaalada Madiino nabiga sallallahu alayhi wasallam muslimiinta ayuu jamciyay warkii iyo dagaalkii ka socday Mu'ta ayuu muslimiinta magaalada Madiino joogtay sidii telefishin wararkii tooska ma maqli jirtay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam warbixintii dagaalka ayuu toos ugu taganiyay intuu muslimiinta isugu yeeray deedna waxa uu ka sheekeeyay wixii uu sameeyay Zayd ibn Haritha inuu maartay cadawga aad ula dagaalamay deedna la dilay in haddana Jaafar uu calanka qaaday deedna uu dagaalamay deedna la dilay deedna haddana ninkii la oranayay Abdullah ibn Rawaha calanka qaaday haddana maartay la dilay nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo Madiino joogay ayuu saacada dagaalku socdo ayuu halka toos uga tabinayay muslimiinta magaalada Madiino joogtay uu sheegay waliba nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ka waramay inuu jannada ku arkay Jaafar oo Ilaahay labadii gacmood ee laga gooyay laba garabta ugu bedelay jannada malaa'iktu kula duulayo ayaa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sheekeeyay oo jannada ayaan ku arkay ayuu Jaafar oo laba garab Ilaahay ugu bedelay labadii gacmood oo jannada ku duulayo sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay saxaabiga Abdullah ibn Rawaha ahaa maadaama markii calanka uu qabtay naftiisu ay yara taraduday oo dagaalka inay gasho xogaa yar ay ka daahday in sariirtiisa uu jannada kaga jiifo inay labadiisi saaxiib labadii amiiri asaga ka horeysay inay wax yar ka hooseyso ayuu sheegay taasna ay u wacan tahay taradudkii yara ee uu taraduday saxaabiga asaga hadaba daawade markii saddexdii hogaamiye ee dagaalkii Mu'ta hogaaminaysay la dilay calankii muslimiinta dhulka ku dhacay muslimiintiin ay isku dhax yaaceen oo lees garan waayay oo la kala yaacay maadaama ciidanku uu ku tiirsan yahay raayadan iyo calanka hadii uu dhacana xaalka uu xumaanayo calankii waxa dhulka ka qaaday saxaabi la yiraahdo Zayd ibn Arqam ayaa dhulka ka soo qaaday deedna muslimiintii ayaa isugu dhawaaqay wariyaa macashar muslimiin war calanka yaad u dhiibanaysaan yaad arataan loo dhiibo deedna waxa uu arkay Khalid ibn Walid oo meel agtiisa taagan ayuu arkay deedna calanka ayuu Khalid u keenay wuxuu ku yiri Khalid oo
calanka qaado Khalid waa u diiday wuxuu yiri warniyo anigu haddaan soo islaamay Khalid marka ayada ah 3 bilood ayuu muslim yahay oo waqti aad u kooban ayuu muslim yahay deedna Khalid waa u diiday wuxuu yiri calanka ma qaadayo warniyo adaa iga soo horeeyay adaa badal xaadiray adaa bay'atu ridwaan xaadiray anigu hadda uma soo islaamay calanka adaa ku xaq leh in hogaaminiyo deedna saxaabigu wuxuu yiri wallahi calanka maanan u soo qaadin inaan adiga ku dhiibo mooyaan adaan ku soo qaaday yiri qabo calanka baashu ma taagna maanta adaa soo hor islaamay ay waxay taagan tahay khibrad dagaal xaalad adag ayaan ku jirnaa Khalidna waxa uu cabqari dagaalin markay tagto in dagaal la qorsheeyo dagaal la galo ninaan lagaga daba hadin ayuu ahaa intaasoo sano muslimiinta la dagaalamayeen wixii muslimiinta u geystay muslimiintu ay garanayaan ninkan inuu nin balaayo ku yahay dagaal deedna calankii Khalid ayaa u dhiibay saxaabiga asaga wuxuu yiri qabo adiga ayaan ku dhiibay magaalada Madiina nabiga sallallahu markii uu ka sheekeeyay saddexdii hogaamiye in la dilay wuxuu ku xijiyay mataqaana riwaayada Bukhariga soo akhri thumma akhadha ar-raayata sayfun min suyufillahi fa fataha Allahu alayhi wa sallam calankii waxa qaaday raayada muslimiintu waxa qaaday seef ilaahay seefihiisa kamida ayaa calankii qaaday wuxuu ku xijiyay nabiga fa fataha Allahu alayhi ilaahayna waa uu furay oo guul ayuu ilaahay siiyay Khalid markii uu calanka gacanta ku dhigay waxa uu sameeyay wadayaal aad buu u dagaalamay maalinta ayada ah oo maalin kaga dagaal badneed Khalid ma aysan jirin maalinta ayada ah naftiisa ayuu ka sheekeeyay sida isla Bukhariga ba ku jirtay wuxuu yiri maalintii Mu'ta gacanteedii waxa ku jabtay 9 seefood sidii aan madaxda cadawga ka ugu siinay hadaba waa seefta arato birta laga sameeyo arkiisa bir atqaana laga sameeyo markaas uu sidii madaxyo ugu guray ayay 9 seefood gacantiisa ku jabtay saxaabiga asaga Khalid ibn Walid mana gacanteeda ku soo harin buu yiri ilaa saxiifo yaro Yamaani mooyee wax kale gacanteeda kuma soo harin buu yiri maalinta ayada Khalid markii hogaankii uu la wareegay waxa uu sameeyay ciidankii calanka kor buu u taagay ciidankii uu isku dhawaaqay ciidankii waa la kala yaacay markii hore way isku soo laabteen dagaalkii aad u adkaaday deedna gobolkii ayaa dhacay maalintii 6aad waa la kala gurtay dagaal ayaa loo kala laaftay Khalid markan wuxuu sameeyay maalintan 7aad waa maalintii ugu dambeysay dagaalka oo Khalid uu ciidanka muslimiinta ka bixin doono meeshan laakiin Khalid waxa uu sameeyay habeenka asaga ah ciidanka ayuu isugu yeeray deedna qorshe cusub maadaama 6 maalin la soo taagnaa ciidankana iyo cadawgana la isbartay raayadaha iyo calaamadii ay barteen cadawgu Khalid waxa uu sameeyay si cadawgu u tuso maalintan 7aad in ciidankii hore uusan ahayn waa inuu wax badan sameeyaa sida daraadeed waxa uu sameeyay Khalid ciidankii ayuu isku dhaf ku sameeyay ciidankii qaybtii muslimiinta oo midigta jirtay ayaa uu soo waday bidixda ayuu keenay qaybtii bidixda jirtana waa waday wuxuu geeyay dhanka iyo midigta ayuu geeyay qaybtii gadaal jirtana hore ayuu keenay qaybtii hore jirtana gadaal ayuu geeyay maalintii labaad waxa uu sameeyay ciidankii markii soo hor safteenba go'aan ayaa lagu gaaray muslimiintu Khalid waxa uu ku yiri cadawgan tirada ayuu ka batay waxa weeye waynu ka insaxaabayna waynu ka laabanayna laakiin intaynan laaban waa inaanu dharbaaxay kulul aan u geysana sababtoo ciidankan waa ciidan 200 kuna kuwana waa 3 kun muslimiintu hadii hal mar ciidanku yiraahdaan waa insaxaabay way laabanayaan tii xumeed ayaa ka dhacaysa muslimiintu halka way ku baaba'ayaan sida daraadeed qorshe askari iyo taktiik askari ayaa loo baahan yahay oo ciidanka lagu badbaadinayo markan la laabanayo dagaalka laga baxay Khalid markuu waxa uu sameeyay ciidankii uu isku dhafay uu kala bedelay wajiyo cusub markii la soo istaagay subax damaba cadawgu waxay yiraahdeen baro ciidankii nin kasta wuxuu yiri war ninkan shalay garanay ma bi hor taagnay hogaamiye shalay ana qeyn iyo calanka shalay ana qeyn ma bi hor taagno ciidan cusub ayaa yimid sidoo kale waxa uu sameeyay qayb ciidanka kamid ayuu intuu bixiyay isla habeenimadiiba ayaa waxa uu sameeyay wuxuu yiri waagi markuu bariyan safarno gadaashayada ka imaada boorkana soo kaciyo si ay gaalada ugu mareeyaan in gurmad cusub uu yimid deedna sidii ay sameeyeen oo ciidan baa baxay ciidankiina ayagoo boorka kicinayo takbiirta iyo Allahu barta ku hayo ayay soo galeen meesha gaalada indhaha ay taageen waxay yiraahdeen wallahi gurmad ayaa u yimid nimankan ma asan nin walba wuxuu yiri war kii shalay hor taagnay ma baahan war midka maanta hor taagan mid cusub ayaa yimid ayadoo nafsiyadoodu ay sidaa tahay oo ay baqayaan oo gurmad baa yimid ay ku hayaan ayaa Khalid amar bixiyay weer cusub ayaa lagu qaaday dagaal lagu riiqmay ayaa maalinta 7aad ka dhacay oo subaxdii hore bilowday ilaa 6 saac xilliga qorraxdu waxa weeye bartamaha ay tagtay ayaa la isla gaaray maalinta ayada muslimiintuna guul aan caadi ahayn ay ka hooyeen maalinta ayada ah ilaa ay gaareen hogaamiyihii ciidankan carabta ee Kirishtaanka hogaaminaya qasaasanada ay gaareen oo mid kamid ay dileen kii kalena halkii uu joogay lagu gaaray xaaladu markay sidaa ku sugan tahay ayaa mar qora Khalid waxa uu bixiyay amar in la baxo oo la insaxaab sidii guush ugu fadhiyeen oo mar ay cadawga u jibinayeen ayaa hal mar dagaal ka baxeen deedna gadaal ay u gurteen ninkii Theodore la dhahay hogaaminayay dagaalka ciidankan Yurubiyaanka ee Heraqle walaalkii ahaa markuu arkay nimanka muslimiinta mar qora inay dib u laabteen ciidankiisa ay u amar siiyay cid meesha ay joogto ka dhaqaaqi kartaa ma ay jirto maxaa dhacay nimanku waa jabeen waa ay laabteen maynu raacdayno deedna waxa uu yiri maya ciidankana wuxuu yiri hadda leedii aan raacdayno soo kuwii hadda guusha ku fadhiyay manin asoo guuleysan rabo mar qura caranaya ayaa jira ma jirto wuxuu tan waa xeelad dagaal mana daba kacayn ayuu nimanka ayaga waa baqa carar nimankana way noo baqa cararaya markaan soo galnana kamiin bay rabaan inay nagu ridaan oo balaayo ay nagu dhigaan sida daraadeed ma daba kici kartaan sida ay amar ku bixiyay deedna muslimiintii Khalid go'aanka wuxuu ahaa in la baxo oo meesha laga insaxaabo maadaama cadawgan tirada uu ka batay oo maalintii 7aad baa la maraya halka ay ka laabtay muslimiintii ilaa magaalada Madiina ee sida ay ku aadeen oo toos ay u laabteen maalintii dambe oo 8aad boqorkii ninkii xukumayay ciidanka Yurubiyaanka ayaa waxa uu diray ciidamo jawaasiis ay yiri soo fiiriya meesha ka dagaalamayeen iyo xerooyinka ay deganaayeen hadii la kacaba wax joogo ma wajirto meesha waaba faaruqba maxay dhiibatay deedna waxa uu yiri macquul maan aad buu xanaaqay waxa uu yiri macquul ma naga tagay ma insaxaay waa naga fakadeen waxa uu arkay in Abariya laakiin
وصدها وحلي وهو حلي اللي وكلا بحي ومسلمين ماشي كتجان أي واحد والبوغاديين المسلمين أي صحابين عيدك مسلمين واحد يمدي مجال مدينة الكاس أيو يمد عيدك مركي يمدين لما سو دوينين دمركي يعرورتي أي دغحان قاطع ولا توريي وحل يري واتسو عررتين واتسو جبتين إلهي درتيس ماذا ودغالمين وماذا دماننا محاد دمان ويسين محاد سو جبتين وحوي فرار باتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصبحي وكعلي وكيري معهم فرار بل هم الكرارون وكوروا العلنية كل حدا سida ayaa maartay nabi sallallahu ugu celiyay dumarkii iyo caruurtii dabada wada dagaalka todobada maalin socday muslimiinta waxa ay ku waayeen ilaa 12 shahiid oo ay ku jiraan saddexdii hogaamiye ciidanka hogaaminayay halka ciidankii gaaladu ay ku waayeen ciidan 300 askari lagu sheegay ay halka ku waayeen taasoo mucjiso ah in 300 oo muslimiin ay dilaan ciidan tiradoodiiba ka badanba oo 300 ay ahaayeen muslimiintu cadowgana waxa ay ka dileen 300 askari waana markii ugu horeysay oo dawladda Yurubiyaanku ay muslimiintu la dagaalamaan taasoo fariin ah in muslimiintu aanay ahayn dad la dhayilsan karo markan wixii ka dambeeyana ay tahay in dunida odil ay xisaabaadkeeda ku darsato oo ay ka baqdo halka ayuu ku soo dhamaaday dagaalkii Mu'ta oo muslimiintu ay wacdaraha ka dhigeen looguna aaray saxaabigii la oranayay Al-Harith ibn Umayr al-Azdi ee fariinsidaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ahaa ee uu dilay ninkii qasaaniga ahaa ee Amr Shurahbil ibn Amr la oranayay dawada halka ayaan ku soo gabagabeynaa dagaalkii Mu'ta si kooban baynu uga hadalnay faafaynta dad u baahan tahay kutubta taariikhda ayaad akhrinaysaa dagaalkan soo gaartay waan ku mahad celinayaa daawashada muuqaalka daawatay سبسكرايب صار جنلك صاحبك أو شير قري أدب هذا ما سنتهي لصعو مغالك حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته